madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isbedelkii ugu sareeyay waxa uu ku sameeyay shaqaalaha madaxtooyada waxaana la ceyriyay 11 qof oo ahaa raggii sida tooska ah u joogay qaybta habmaamuuska iyo waliba xubno kale oo muhiim ah sidoo kale waxa iyagana la bedelay 9 xubnood oo ahaa dhalinyaro u tababaray bartikolka oo ku qornaa madaxtooyada Villa Soomaaliya kuwaas oo loo bedelay wasaaradda arrimaha dibadda wasiir dowlaha madaxtooyada Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur ayaa dhalinyaradan ku wareejiyay warqadda bedelka madaxtooyada isagoo oo sheegay in amarka madaxweynaha lagu bedelay dhalinyaradani wararka qaar ayaa sheegay in isbedelkan uu ka dambeeyay agaasimaha cusub ee madaxtooyada Fahad Yaasiin oo 31 bishan xilka loo magacaabay isla markaana uu dalbaday in dhammaan wixii madaxtooyada ka shaqeeya la bedelo lana yimaado koox cusub wararka soo baxaya ayaa sheegay in agaasime ku-xigeenka madaxtooyada loo magacaabi doono qof haween ah halka agaasimaha ku-xigeenka Cabdirasaaq Shaqale uu doonayo inuu ku wareego booskii kaaliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Cabdirasaaq Shaqale oo saaxiib dhow la ah Fahad Yaasiin ayaa dalbaday jagada uu hadda ku magacaaban yahay Maxamed Cabdullaahi oo ahaa ninkii warqadaha u tirinayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashadii 8 February dhalinyarada ka qayb qaatay ololihii doorashada madaxweyne Farmaajo oo aan wax xal ah helin ayaa loo badinayaa in booski ay ka baxeen dhalinyarada aqoonta u ahaa bartikolka lagu bedeli doono madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidii suuqii sarifka oo kale u sabaynaysa iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay ay ka jirtay loolan dhinaca awoodda ah oo u dhaxeeya koox kala duwan oo ku xidhan madaxweynaha waxaana haatan muuqata in ay guuleysteen kooxdii uu hogaaminayay Cabdirasaaq Shaqale oo hogaaminayay oo isla markaasina saaxiib dhow la ahaa agaasimaha cusub ee dhawaan la magacaabay Fahad Yaasiin ayaa isagu dalka dib uga maqan isla markaasina waxa la sheegay in isku shaandhaynta iyo weli isbedelka lagu sameeyay madaxtooyada uu